qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala Somaliland ayaa maanta carwo ka dhacday magaalada Hargeysa oo loo qabtay jaamacadaha ku soo bandhigay kuliyadaha kala duwan ee ay qaadanayaan sanad dugsiyeedka cusub. Jaamacadahan ka soo qayb galay carwadan oo kala ah jaamacadda Timcadde Gabiley, Burco University, Abaarsatek, Shifa Medical University, Hargeysa International University, Golis University iyo Mount Kenya ayaa dhammaantood ardayda sanad dugsiyeed kan ka baxday ee gelisa jaamacadaha u soo bandhigay kuliyado kala duwan. Waxaana ka mid ah kuliyadaha ay sanadka soo bandhigeen iyagoo halkaasi ka hadlay. runtii jaamacadda Abaarsatek maanta waxay ka mid tahay jaamacadaha ka qayb galay carwadan. haddaanu nahay jaamacadda waxaanu adeegyada soo bandhigayno bulshada waxa haday noqoto dhinacyada digriga, haday noqoto masterta, haday noqoto dhinacyada diplomka, intaba waanu soo bandhignay. waxa jirta iyadana fursadan ay kaga faa'iideysan karaan dhalinyarta gaar ahaan kuwa ka soo baxay dugsiyada sare ee waqtigan xaadirka diyaarka ah inay ka qayb galaan jaamacadaha ku biiraan inay lacag la'aan isku register gareyn karaan intan ay socoto carwadu. runtii jaamacadda Abaarsatekna waxa iyadoo ay tahay anna bulshadu siday u aragto waa jaamacadaha ugu tayada badan markay dalka noqoto, iyadoo tayadiba ay maanta noqotay wax ay naadira helideeda. fursad aanay haysan jaamacadaha kale because of ardayda gelisa jaamacadda waxaan siinaynaa chance badan oo ka banaan jaamacadeeda sida ardayda imka ka tagayso jaamacadda ay Hargeysa ka tagayso doonayso jaamacadda Gabiley inay galaan. waxaan u haynaa basas bilaash oo aan ku jirin fiigooga aan ay maxadadaay jaamacaddu bixinayso. waxa kale oo ardayda arabsiyo kala saakadaalik wajaalisaas kadaalik waxa la sameeyaa basas qaadaya soo celinaya markay saa u dhamaato timeka looga soo baxay jaamacaddu. aad iyo aad baad mahadsan tahay. runaantii jaamacadda Golis waa jaamacad taariikh badan leh. waxay hadda u diyaar garoobaysaa ama u dabaaldegaysay sanad guuradeedii 10aad oo runaantii muddo 10 sano ay jirtay. kuliyaddu tadawaraad ay jaamacaddu soo sameynaysa marka dambaysa sii badnayd. hadda kuliyad macaan jaamacaddu waxay leedahay 14 kuliyadood oo kala duwan oo ay bixisaa, qaar hadda cusub iyo qaar horeba u jiray. runaantii waxyaabahan xagan ku soo bandhignay waxa kamid ah kuliyado cusub oo dalku noo baahnaa oo aan ku soo kordhinay kuliyadda engineering oo kale, kuliyadda la yiraahdo industrial engineering ama warshadaha oo runaantii dalku baahi badan u qabay, mechanical engineering. runaantii waxa xagan diyaar u ah oo gacanta ku haya waa istiraatiiji balaanka jaamacaddu leedahay 2022 oo runaantii ay tahay inay carwadan haddaan u soo noqdo waa markii labaad ee aanu ka soo qayb galay ama aanu tartankan oo kale aanu ka soo qayb galay. had iyo jeer waxaan aaminsanahay waxyaabaha aanu kaga qayb gallo tartankan inuu ka duwan yahay waxyaabaha jaamacadaha kale ay la yimaadaan. waxaan anu had iyo jeer isku daynaa inaanu production ama wax soo saar waxaanu samaynay oo dalkeena laga soo saaray aanu markaa soo bandhigno. sanadkii hore sidaad ogeyd waxaan soo bandhignay gaas dabiici ah oo aanu ka samaynay digada xoolaha oo loo yaqaano biogas ama afka qalaad oo macnaheedu yahay gaas ka soo jeeda noole. gaastaasoo laga heli karo digada xoolaha oo qashin ahaan inagu ah cuntada waste kitchen ama kitchooyinka qashin ka soo baxa laga heli karo, dhirta oo la shiido laga heli karo, waxyaabo badan oo noolaha oo inaga hadda dhib bay nagu haya. waxaanu ku soo bandhignay sanadkii hore. sanadkan waxaanu doonaynay inaanu kaga qayb galno bandhigan ama tartankan wax soo saar laba waxun baanu ku soo koobnay. mid waa Greenkan saad aragtaan, jaamacadda Burco waa jaamacad u ballaaran, waxay leedahay qayb xanaanada xoolaha, xanaanada xooluhu waxay leedahay qayb dhaqaatiir, waxay leedahay qayb. waxaan ahay director Mount Kenya University. Mount Kenya University basekeedu waxay ku leedahay Kenya. waxa waa university oo internationally recognized oo waliba ISO certified. marka jaamacaddan waxay bixisaa cilmi kulli. hadii waxaan bixinaa School of Business, School of Sciences, School of Law, School of Health Sciences, Pharmacy, Nursing, Engineering, nutrition wax aan bixinaynin ma leh.
marka jaamacaddan waxaa waaye waa jaamacad maaragtay 25 sano shaqaynaysay waa jaamacad oo inkastoo hadda aan ku cusubnahay Hargeysa waa jaamacad international oo waliba Eastern Central Africa waxaan joognaa Rwanda waxaan joognaa Central Africa waxaan joognaa Uganda waxaan ku leenahay in 13 campuses ayaan ku leenahay Kenya oo Garissa ay kamid tahay jaamacadda Hargeysa International University waa jaamacad caalami ah oo ku soo kordhay jaamacadihii hore wadanka uga jiray waxaana la aasaasay jaamacaddan muddo dhaweyd waxaana ka mid noqon doontaa jaamacadaha hormoodka ama jaamacadaha horboodi doona insha Allah mustaqbalka rajaynaa jaamacadaha wadanka furmi doona jaamacadda Hargeysa International University waxay bilaabaysaa ama ay qaadanaysaa diiwaangelinta ardayda cusub ee sanad waxbarasheedka 2015-2016 waxaanay socon doonaa qorshaha bisha wuxuu bilaabmi doonaa registrationka jaamacadda Hargeysa International University bishan September 5teedii ayuu bilaabmay waxaanu socon doonaa ilaa bisha September 3keeda hadda waxaan ugu bashaaraynaynaa ardayda sanadkan ka soo baxday jaamacadda secondaryada wadanka gaar ahaan ardayda top 10ka ah inay aanu samayn doono scholarship iyo ardayda minority groupka inaanu sameeyay iyagana scholarship Hargeysa International jaamacadahan ka soo qayb galay carwadan lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa mid waliba waxay halkaasi ardayda ku boorisay inuu soo galaan jaamacadooda Jimcaale Daybo Ali Somali News magaalada Hargeysa